sideed isim oo ka mid ah isimada dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo saxaafada kula hadlay deegaanka Qaraac lagu dhal ee gobolka Sool ayaa waxay fariin u direen dawladda federaalka ee Soomaaliya inaysan wada hadal la galin maamulka Somaliland. Garaad Saleebaan Garaad Maxamed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya inaysan wada hadal la galin Somaliland. garaadku wuxuu kaloo ka hadlay shir uu ka qayb galay Dr. Cali Khaliif Galay oo Hargeysa ka dhacay wuxuuna sheegay in Cali Khaliif uusan odaya isimada ragaalka fadhiyoodan dhamaanta way salaamaya saada islaamka ay salaamaya salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan ka bacdi halka waxaan ku fadhinaa dhamaan isimo dhulbaanta aan ida ka maqnayn oo ninaan sanaya iyo niman aga martay oo banaga maqan intay rawaadanahay waanu ka hadlaynaa caalamka u sheegaynaa فرارك وشيغينا انا وانت سغلنا وشيغينا قال يا مسلم با وكلا باي سوماليلاند لما كلا باحي انا غن حكومين سوماليلاند لما نهين ولا ما قيبسن دولده ماملكوده xun dawlad ma ka mid manihin waxa iyaga dhistay hadda waa iyaga meel maanta la jooga waa rag u shaqo tagayo dadku si on guri badan yahayo dawladda dhex burburtay dadkii iska alaadumay inaan iska u tago shaqadii waxaan anaga dhimay matalaan ulbaantan ma matalaan rag baa ku jiraan laba oran karo federaalka waxaan u sheegnaa federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa inuu federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliya waxaan kala ogolayn ka mid baa u nahay kala Soomaaliya ma rabno anagu laakiin Soomaaliyeedka Soomaaliland la baxay لو شغال كمالهن سوالنا لما أنهن ما نقومنا مثلان نومنا هذا كران ماشي إذا إله ضيعنا أنا وشغال يا صوت دول يو للي هاي Somaliland يو دولة فدرالك وضع هذا يو لك لقى وضع هذا يو حكوتي رسول Sanaag iyo Cayn أنا كنا وحنا اسمادي قبل الله أسبانون هاي waxaan runaa mowqafka dadkaasi qaba guud ahaan inaanu halkan uga soo gudbino saxaafadda iyo cid kastoo ay qusayso arinta waxaan u sheegaynaa inaanay qusaynin gobolada Sool Sanaag iyo Cayn wada hadalka wax allaala wax ka quseeya aanay jirin maamulka Hargeysana cid u matasha oo dadka deegaanka dega u dirsaday oo iyada wada hadal nooga qayb kale aanay jirin marka arinta waxaanu leenahay cid kastoo ay qusayso waa in la iska ilaaliyaa ummadu sida hadda dadka Hargeysa jooga ay u leeyihiin masiirka yaga anaga ka talinayna ayaa cid waliba masiirkeeda uga talinaysa xaq bay u leedahay cid waliba masiirkeeda inay ka taliso Soomaaliyana runtii waxaad moodaa dawladii dhexe markii ay ka burburtay inay noqotay qabaa'il inay noqotay oo system qabaa'il oo kale ay u badan tahay arrimaheedu baad moodaa marka waxaan leenahay cid kasta oo jecel in la ixtiraamo waa inay dadka kale iyana ixtiraamaan haddii ay dadka kale ixtiraami waayaan iyagana la ixtiraami maayo arinta marka macnaheedu waxa weeye qolada maamulka Somaliland waxaan leenahay isku filaado oo anagu idinma ogolin Soomaaliland ka go'nana ma ogolin dadku deegaanana waa kala yahay qabaa'il waa kala yahay waxaanu leenahay taladiina iyo inaad idinku tashataan iyo waliba inaad fiicnaataan waxba cid kastana waxaan u sheegaynaa annagu wada hadallada inaan qaybna ka ahayn qaybna ka noqon doonin haddii sida hadda loo wada ee khiyaamadu ku jirta lagu sii wadana wixii ka yimaada mas'uuliyadeeda waxa qaadi doona dadka gacanta ku haya ayaa mas'uuliyadda qaadi doona waxa kale oo la sheegaya sida hadda garaadku sheegay qolale dhulbaantaanu matalaayo hartibaanu matalaayo halkaas ka hadlaya la sheegayay qoladana waxaanu leenahay ciidaad matashaan ma jirto haddaad doonaysaan inaad matashaan gogashan kaalaya halka kaalaya ha laga tashado ha la idin diro marka la idin diro la idin idmado bulshada iyo shacabka iyo waxgaradku idin idmadaan inaad maaragtay tagtaan oo hawl ka soo qabataan Hargeysa markaas ay noqonaysaa laakiin haddaad idinku is calaamadisaan oo idinku is magacawdaan oo idinku dana aad leedihiin aad ku noqonaysaan harti taasi deedin socon mayso waxaanu leenahay dadku shaqadooda ha qabsadeen cidii tala u jeeda iyo dan u jeeda dadkan doonaysa inay matashana deegaanka dadku degan yahay iyo gobashan hadda lagu fadhiyo ismadii iyo waxgaradkii iyo cuqaashi ay joogaan
ha yimaadeen baanu leenahay taa lafteeda wax kama jiraan weeye waxlaala wax ka jira ma jiraan sidaa loo ogaado aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله عندي صومالية iyo caalmikaba ee codka iyaga maqlaysa waxaanu u sheegaynaa saxaafadana u qabanay isabadii beesha dhulmaanta baarajooratoodii inaanu ku fadhinaa wada hadalkaa la sheegaya ee laleeyahay dowladda federaalka iyo Somaliland maamulkeeda wada hadlaya inaanan ka mid ahayn federaalkuna naguma matalo oo kama yeelayno Somaliland iyaga baanu leenahay dadka iyo Soomaalida ka cararteen ku soo noqda taasoo naga naseexay laakiin intaas midnimo diidka tihiin wax inaga dhaxeeya iyo waxaynu isugu imanayna midna ma jiro عندي شرارك أي هؤلاء كهذا سيء كهذا سنة وحلو ليرها ما أمرك صوبر اللي كمان بدهين كمان نقدونه شركة أنا عندكم متشة وأنا كنا جيسرنا ما تشرو وضع هذا الكا ومبدأ يقول وحوي صومالي إلى الكلجوين أي صومالي نبكم بدوده مبدأ يقول واقع تطلق إنها لقى قرصان كرو دوشة يدو خطر هذا كل شيء الحكومة كل حاد وين أو كعقل وين أو كتاريخ وين وحنولنا هاي السبادي هراء لبض الجراد الله سوى هذا النوا كل رأسنا وأنا إسكود الرأسنا أنا كيرا وبقلي سالة وحصوبان الليلة وبابل نقد حيانا متشرو وحبيش يدا كصعود ونقوم بالتلانا متشرو وحعاربك دولة فدرالك أنك هالكايس كتشوفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلطان سعيد عثمان علي أنا waxaan beesha caalimka u sheegaynaa beesha caalimka la waxbaanu dhexdhexaadinaa ama magaalooyinkeeda gogasha dhigaysa waxaan u sheegaynaa Somaliland annagu beelaha waqooyi daga ee harti baanu nahay beelkooda halkooda iska joogan beelaha harti waqooyi baanu nahay annagu Somaliland ka mid ma nihin adduunku Soomaaliya u gudbay Soomaali weyn baanu nahay cid nagu matashaano dadka shaqaalaha shaqooyinka yar yarka iyo hunguriga u doontay waqooyi mataal naguma aha walada federaalkana waxaanu sheegaynaa ee la leeyahay Somaliland bay wada hadlayaan ha xumaynina wadanka ay yiraahdeen ayaan la qabaa Somaliland kamid manihin kamidna noqon mayno waa nin halka degano idoor baan anagu nirahnaa anana harti baa la yiraahdaa kunkii sanadooda ay jireen anana waa jirnay waxa la intii muyo jirtay buur dhaabna waa jirtay intii halka muyo ahaadeen buur dhaab baan ahayn waligeeyo waa jirnay way sag deganeen nooma dawladeyn karaan namana maxaa la yiraahdaa noomana maxaa la yiraahdaa Somaliland bay kamid yihiin nama oran karaan hadda iyagu maamul Somaliland la baxeen la yiraahdo Somaliland baa jirtaa iyagay jirtaa annagu Soomaali baanu nahay haddii qabiil loo burburayna harti baanu nahay daarood baanu nahay haddii dawlad la yahayna tii Soomaaliyeed la yaqaanay baanu nahay wax inta ka sokeeyo aanu sugu imaanayno oo naga dhaxayana ma jiraan wada hadalladan koonfurta laga sheegayo ee leeyahay aan saxaafadda ka maqalay leeyahay waqooyi iyo koonfur baa loo wada hadlay ama dawladda waqooyi baa wada hadlaya magaca waqooyi laga daayo hal yiraahdo waxa wada hadlaya waqooyi Hargeysa ama Hargeysa iyo waxa wada hadlaya iyo federaalka hal yiraahdo ama hal laga daayo sidaas oo waqooyi intii Ingiriisku xukumi jiray hadii laga wado Maxamed Shaqalle Som News TV Laascaanood